dhalinyaradii iyo kiiba markaa tashaday fariintii boqorku markay soo gaadhay tashadeen oo waxay siraadeen boqorkii fariinta buu soo diray oo wuxuu leeyahay laba mid haniigu imaado inaad diinta islaamkeed sheeganaysaan aad ka soo noqotaan oo aniga cibaadadayda dadkoo dhan ba aniga caabudo ee baryo waxay weydiisteen inaad aniga inkuna kuwa caabudaya aad ka mid noqotaan oo dadka wadanka ku nool aad la mid noqotaan iyo inaad maaragtaan amarkayga aad iska diidaan oo intoo nolosha aan laynagu qabto halka intoo nin walba geed aan ku xidho dhagax sida loogu tuuray nafta aan kaga saaro marka way tashadeen waxay yiraahdeen diinta islaamka ilaahay nagu galadaystay ilaahay baan rumaynay id qaamu faqaaluu rabbuna rabbus samaawaati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaahan laqad qulna idan shatata haa'ulaa'i qawmuna ittakhaduu min dunihi aaliha ila aakhir al-aaya rabbi bay rumeeyeen iyaku allaha samaawaadka iyo araadiinta iyo koonkan iyo kaa'inaadkan uumay ee isagu gacantiisa ku abuurtay ilaaha baa ku galladaystay inay ilaahay rumeeyaan ay aaminaan inna markaasay door bideen inay dalkooga iyo dadkoogaba ay u seegaan diintooda inay badbaadsadaan dalkoogii iyo dadkoogii waxay ka door bideen inay diintooda badbaadiyaan waliba bacd alkutub waxay dhigaysaa dadka dhallinyaradaasi dad fuqaraa iyo masaakiina kamay soo jeedin waxay ka soo jeedeen usrad loo yaqaano oo wada aqniyaaya bay ka soo jeedeen baa nin walba aabihii ama dowladdu mansab ku lahaa ama maalqabeen la yaqaano ahaa yadna waxay door bideen waddanka dhanba inay seegaan eheladoodiina ay waayaan laakiin diintooda inaysan waayin yani diinta qaaliya dadkaaga iyo adiga mawdka ini kala geyn oo ini kala qaadi adduunyadan aad joogtana mawdka ayaa kaa qaadi laakiin diinta maaragtayna mawdku kaa qaadi maayo diintaada iyo iimaanka aad ilaahay rumaysan tahay iyo diinta aad ku dhaqmaysid adduunkan intaad joogtana ciz iyo sacaade iyo sharaf baad ku noolaan qabriga markaad gashana diintu qabriga way kula galiyo waxbay ku tari aakhiro banka qiyaama markaa lagu soo saarana diintu waxbay ku tari way ku anfici naarta inaad ka badbaadana diintaa sabab u noqonaysa janno qofku inuu galana waxaa sabab u noqonaysa waa diintiisa diintuna waa diinu lislaam ina diina cinda allahi alislaam ilahay baa sheegay islaam uu weeya diin kale ma jirto ugu waxaan kale adduunka jiro oo dhan dadku sheegayaan waa hawa afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawa ilaahay baa sheegay hawadoodii un bay raacayaan baa ilaahay kuwaas waxay naftoodu ay jeclaatoon bay caabudayaan naftooda un baa qololba waxay wax u qurxisay shaydaanka dadna way caabudayaan laakiin diinta ilaahay agtiisa laga yaqaanaa waa diinul islaam marka dhallinyarada waxay door bideen dalkii iyo dadkoogii oo dhinaca iyo diintii oo dhinaca maxay qaateen bal sheega diintii bay qaateen adeer naga daa waxaan la duubaya inta baaba nagu filanay meelaha ka daawada hadhowtooda wallahi naasto dalkii dhannaa bay seegeen iyagu gabalkii markuu dhacay way lugayeen mid saaxiibkoodoo markaa xoolo dhaqanayay oo xoolaha uu jiraya marka ay uu watayba adhiga la raaci jiray kiina way u sheegeenoo waxay ku yidhahdeen annagu dalkii waan ka baxnay oo maxaad uga baxdeen boqorkii baa fariintaa noo soo diray imaa islaamnimada ka soo noqda oo aniga cibaadada la caabudaya ku soo noqda imaa intoo nolosha aan nigu qabto ayaan dhagax tuur inigu dilayaa maxaad doorateen dalkii waan ka tegnaa annagu waa socon de ana waan niraacayaa buu yidhi markaas fakharajuu way baxeen aygii baa markaa aygii isagu uu watay adhiga la raaci jiray ayaa raacay baa layidhi oo daba kacay markaa bay ku yidhahdeen aygaagan uuna sheegaya naga reeb markaasuu si walba dhagax halku ugu tuuray buu hadhi waayey aygii iyo kii baa markaa hareeraha dhagax iskala taagay
luqadii marka ay ku hadlayeen ayaa ilaahay aygi ka dhawaajiyey wuxuu yidhi marka wuxuu yidhi diinta aad aaminteen allaha aad rumayseen baan aniguna u aqaanaa allahu rabbulcaalamiin keli inuu yahay maxaa see keen reebaysaan buu ku yidhi yaana ka hadliyey ilaahay baa ka hadliyey markaasay haddeetoole markay arkeen aygii oo hadlaaya ayay af soomaaliya kugula hadla ka waran soo cajiib ah afkoogiibuu kula hadlay luqadoodii saryaaniyadii oo iska kaxaystay xayawaanka ilaahay baa ka hadlinaye oo nabigeena calayhi salaatu wassalaam markuu madiine soo gaadhay nin magaalada madiina miigeyga adhig la jooga ayaa dhurwaa baa qaatay ama diib neef buu ka dafay baa la yidhi dhurwaagii neef buu ka qaatay uu ka daba booday baa la yidhi neefkii buu ninkii ka soo ritay libaaxi dhurwaagii ayaa halkaa istaagoo yidhi waa cajaba ah waa arrin la yaab la buuyi war ma rasaqa ilaahay afka uu ii soo geliyey ayaad ina aadanow aad iiga hadhi wadood iga reertay buu ka yidhi luqadiisii buu kula hadlay carabigii ninkii baa yaaboo yidhi waaba cajiib mayay ayaa luqa carabiya igula hadlaya hadal bini aadan igula hadlaya marka yaygii baa u jawaaboo ku yidhi hadalkaan anigu aan ku hadlay waxa ka cajab badan baan kuu sheegay muxamed calayhi salaatu wassalaam oo magaalada madiine soo gaadhay oo khabarkii samada ilaahay uu soo dejiyey ummadda uga warramaya oo dadku ay la yaaban yihiin kaasaa aniga iga cajab badan ee ordo madiine tagoo nebiga rumey buu ku yidhi marka warrama isagoo ordayo adhigiisii wata buu magaaladii madiine soo galay ninkii markaa buu nebiga u sheegay calayhi salaatu wassalaam markaa buu nebigu ku yidhi saxaabadan u sheeg lanna ilaahay baa ka hadliyey yaa ka hadliyey allah baa ka hadliyey aygii markaa dhallinyaradii uu raacay waagii markuu caddaaday baa la yidhi god bay galeen kahaf waa god buur ku dhex yaalla urdun iyo meelahaana waa lagu sheegaa dadna waxay ku sheegaan turkiya ku sheegaan laakiin xaqiiqada ilaahay baa garan way seexdeen markaa ilaa xalay oo dhan bay lugeynayeen oo dhuumanayeen oo ordayeen moogta waana la raadinayaa gabalkii markuu dhacay xilliyadan oo kale ayay yidhahdeen haye haddaba caawa waan guuraynaa hadda maalinkii oo dhan way hurdeen way dhuumanayeen habeenkana waan guuraynaynaa waxay dhahen laakiin safar ma gali karayna xilligan xalay oo dhan waan soconno wax ma cunin safarkuna wuu dheeraan karaa dee maxaan samaynaa lacag intoon iska qaadno nin innaka inaga mid ahaan u dhiibno magaaladii ha ku noqdo cunto ha inoo soo qaado haddii la qabtana yuusan ka soo sheegin annaga magaaladii buu mid soo galay markaa isagoo isqarinaya walyatalataf waa ka qur-aanka ilaahay buu yidhi walaa yushciranna bikum axada haddii la haleelo isagoo la gartana yuunan cidna noo sheegin keligii ha ku ekaata dhibtaas ila diin baan la baxsanaynaaye diintaada meesha dhaawacaysa inaad ka baxdaa waa waajib weeyaan halka iimaankaaga dhaawacaysa ee diintaada iyo caqiidadaada iyo islaamnimadaada wax yeelaysa inuu qofka muslimku jooga ma bannaano waa inuu eegtaa meel ay diintiisa iyo islaamnimadiisu ku badbaadi karayso dhallinyaradaasi waddankoogii maxay uga baxeen inay diinta badbaadsadaan leanna diinta qaaliya magaaladii buu yimiday cuntadii markii uu qaaday uu lacagtii sidhi dhiib ayaa ninkii lacagta ka qaadayay baa eega lacagtan xaggeed ka keentano jeebadayda aduu xaggeed ka timido de anna meel dhow baan ka yimiday dadkii baa ku soo ururay adeer lacagta xaggeed ka keenta maad ciyaaraysaa adoo maqaaxi magaalada ku taalla intoo tiraada baaste iyo kalluun iyo hilib iigu gura oo lacagtii haylasalaasa u soo saara ka waran shalay bay ahayd haylasalaasa ma dheerayn dhowr iyo 70 bay ahayd lacagta yarkan u wataa waxaa laga joogaa 3 qarni baa laga joogaa 300 oo sano iyo ziyaado
markaasay yaabeen dadkii oo dhan lacag xageed ka keentay anaa wata anaa sita aduu xageed ka timid meel dhow markaasayna anagu dad muslimiin aan nahay dadka ma dulmino cidna xaq darro dhib uguma geysan lacagtan aad wadato waxay waddankan ka shaqayn jirtay zaman boqor la odhan jiray hebel hebel uu dalkan xakumi jiray oo muddo 3 qarni iyo dhowr sano laga joogo ayay lacagtani waddankan ka shaqaynaysayoo saasaan adiga kula yaabanahay sidaasaan adiga kula yaabanahay uu yaabay markaa yarkii yaa 300 oo sano ah odu maxaa tahay oo anu boqorka aad sheegaysaan dhalinyar iimaankoodii iyo islaamnimadoodii iyo diintoodii la baxsatay baan la socday hal habeen kaliya ayaan guuraynay waagu markuu baryayna god baan galno waan isqarinaynay galabta markaan hurdadii ka kacnayna anaa lacagta la ii soo dhiibay oo laygu yidhi orodoo magaaladii noo tago cunto noo soo qaad si qarsoodiya haddii adiga lagu qabtana hana soo sheegin oo dhallinyaradii kale mee godkii bay ku jiraan oo weli way hurdaan iyaku anay sugayaan 309 sano walabithuu fii kahfihim 300 siniina wasdaaduu 9 ilaahay baa qur-aanka ku sheegay 309 sannadood timahoogii ismay bedelin midabkoogii isma bedelin dharkay wateenna ismay bedelin may harraadin mayna gaajoon mayna bukoon kulayl baa waddanka ka dhacaya kulaylkuma saamaynin baraf baa waddanka imanayo ka dhacaya barafkuma saamaynin abaaraha adduunyada ka dhacay abaaruhu ma saamaynin noloshoodii iyaka ilaahay uu joojiyey halka caalamka inta kalena noloshu ay socoto soo doonaya la waayo allah qisatu asxaab alkahf cibra ku jirta cibro iimaan baa laga bartaa cilmi baa laga bartaa diin baa laga bartaa mujaahadada iyo tadxiyada diinta loo hurayaa laga bartaa in yar bay dhallinyartaasi ay tabceen laakiin taariikhdu ilaahay ka reebay bal u fiirso ilaa qiyaamaha laga sheekaynayo mee dhallinyaradii godkay ku jiraan anay isugayaan way jiifaan boqorkii muslim waddankii mujtamaca ku noolaa o dhan wada islaam waddankii u isbedelayba 3 qarni baa soo wareegtay ilaa adduunkan ayaa ka taliya kol boqolaa adduunka qabsanaysa oo camiraysa qolo kalena way socon kol boqolaa camiri qolona way socon qoladan timidana ilaahay baa keenay kuwa socdana ilaahay baa kaxeeyey wax kastana waqti buu leeyahay ogow likulli shayin lahu ajalun musamma shay kasti ajal buu leeyahay xilli buu leeyahay xilligiisu hadday gaadho uu socon habeenku muu joogaa mise u socdaa maalintu may joogtaa mise way socotaa wiigu muu joogaa mise uu socdaa biluhu may joogaan mise way socdaan adduunku u socdaa cajalad wareegaysa weyna aclam iyaku gaalay adduunyada dhallinyaradaasi gaal bay waddanka uga baxsadeen walaakiin ilaahay 3 qarni kadib wuxuu keenay dad muslimiina waddanka inay ku noolaadaan iyakuna noloshooda ay sidoodii tahay laanna ilaahay waa qaadir calaa kulli shay bilaa biyuu ilaahay nooleeyey bilaa baad buu ilaahay nooleeyey bilaa maaragtaanay gogol baa ilaahay nooleeyey bilaa maaragtaanay bilaa asbaab baa ilaahay nooleeyey bilaa cunna ilaahay nooleeyey waa noloshoodu waa sidoodii isma bedelinba laanna ilaahay jalla wacala siduu doono yeela weeyaan ina rabbaka facaalun limaa yuriid facaal siduu doono yeele adoo biyo cabbin haraadka uu kaa qaadi karaa adoo cunto cunin gaajada uu kaa bicin karaa asbaabtan adduunyada taalee bini aadamku ay ku noolaadaan adoonan haysan ka ku noolayn kara nolosha ku siin kara waa kuma allahu rabb alcaalamiin jalla jalaaluh bilaa asbaab ayaa ilaahay dhallinyarada nooleeyay bilaa asbaab wanuqallibuhum وترى الشمس إذا طلعت
تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. هذه كلمة حيد ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي. أي قال لما قلبه يسقى بالليل لأن أي بقي السبال ليلي ضب كأنه كأدقي هاي لكن إياك أما بني آدم كا إلهي يحول وانقلبنا دنا عن مركو دالا دنا عن كلام الربينا دنا عن مركو دالا حق كلام الربينا بإلهي ما شيء لكن أي قصيد يسوع سووا جيفا لأن هرجي سنة أي جبال ليلي بقولال سنة وحو حملك ربول كانوا صدقوها يسوع لأن أبور كان من آدم كالله أبوري يقاب كان أي الله أبوري وكل الدون تاني نادرت حتى بني آدم كو حبوها بينك حق بدح له أصيح وكل مرة راجع كرو وإنه هو رئيس كل رجال الولاية حق المدك هذا أصيح ده نهاية الساعة وقف وجيل في كرام لأن المدك تمرك هذا أصيح حتى قلبك وهلك بدح دكويا لا لكن بدح ده مرك هذا أصيح حتى بالله يري قلبك وزنك يعلس ودم بكون عاية لأنه قف كبد مياه خروج مركز كل رجال لذلك النبي محمد وحي إنه جد يونس النيي إننا على صح ملك الله صح هذا قال هذا مركز علم الآلات كان وحول بقى يكون اكتشافين يكون قاعدين مركز هلان إيه قاعدين بين آدم كوين الملك توصي حدا هذا إنكم قرتين يا هذا يكون قرتين آلات بيكون قرتين يكون أجان يقلب كان سمجتين ولكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بوحي من الله وحي إلهي حقي سكجي مدي أي نبي النووش يقول هدي سواها كمدا هاي ويري متكين هبينك مركو جوجوشي سقاته هي فليضجع على شقه الأيمن بالنبي يقول حاجة ملك تعوص يحدى بالنبي يقول غفر قلبي يجيب حاجة كويا لذلك قفك وأنه مر بإن للرجوع يعني وقلبي النبي إلى هيدا لنا على مركو دالو حاجة كلام قلبيني حاجة نمركو دالو لنا على كلام قلبيني نقصد مالين يجي شيء كي نختار أو جرمنا هيا وضنا داس أيو إيربور أيو مركز ديارات بمجالة كلا أوراعي ندل يرى مسلم أيا مركز سورة الكهف قصة داس رسالة يرى علماء أي كقرآن وتفسير كقرآن كأونا وحكى لأين كدرين واللغة الجرمل كلغو قري لغو طابعي أيو مركز يركي دتك أوقي قيبينية دتك ديارات دسوقية كراسة كفردية نكن وانم بروفيسور أو دكتور أو رجع الدنيا ده حاجة دكتور لماذا هو أقام بدن بكوجرا لأن ودن كجرملكو وودن كلغو شيء اللي هذا وودن كأدون هو أقام بدن حاجة دكتور لماذا لو دون تعافماتك إلهي بنا عافماتك هي عافماتك هي إلهي بنا وزارة عافماتك على قرآن لكن وزير كدني عافماتك هو بكاء الجوار الشيء وزارة دي عافماتك وزير كدنا هو بكاء نبى لنا نقول إن كان روح مدح كي هي أدك هرتكب مصيبين كطبيعي مركز أكون الرجال كاجم سام مصيبة كل عادي وعرينا كي يقوين بيجوا ولا بيقولوا ولا يهيدا ده بدور تكتدا عم كمور تكرر الإنسان هو ضعيف وكان الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا إلهي بشيء ضعيف marka wadanka dhakhtarnimada lagu amaano ninka marka ka soo jeeday risaaladuna luqadooda ku qorneed marka yarkiiba uu tuuray oo siiyay oo qaado marka handbag uu gacanta ku sitay buu iskaga riday waa nin mashquul ninkani laakiin taraaga diyaaradda uu raacay min wadan ilaa wadan ayaa saacado dhan buu soconayay marka markuu kursiga fadhiisto hawlihiisii wixii uu ageeganay uu dhameystay buu xasuusto yiri kii yaraa ee airportka aad ku aragtay muslimka ahaa warqadii uu ku dhiibad halka ku ridatay bal soo saar oo soo saar aayadaas markaas dul taagay wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal lan yarada ilaahay bayda marka ay jiifaan marna midigtaan u beddelnaa baa ilaahay marna xagga bidixdan u dhignaa say u daalindee ila qofku xaggan haduu u jiifo xaggan xanuun baa gaadhay jirkiisa waa qalibnaa baa ilaahay
laakiin ayga ilaahay markuu ka warramayay wuxuu yidhi wa kalbuhum baasidun diraacayhi bilwasiid aygu isagu lama qallibaayo aygu siduu u seexdaa waad aragteen dee sidaasuu u seexdaa isagu aygu bogganuu dhulka dhigaa wuxuu yidhi markaa ninkii wuxuu akhristay bini aadanka markay jiifaanna waxaa qur-aankan uu sheegayaa in la qaqallibaayo asxaab alkaaf oo marna xaggan loo rogayay marna xaggan loo rogayey laakiin ayga maxaa loo rogi waayey buu yidhi waa inaan cilmigaa baadhaa markuu waddankiisii tegey uu dhakhtarkiisii ku noqday ayuu qalabkiibuu baadhay oo wuxuu baadhay markaa dubkii bini aadanka ila waxaan way wada haystaan moogta dubkii bay eegeen qalab buu ku eegay inta saacadooda dubka bini aadanku dhulka dulooli kara buu soo saaray ayga haddana wuxuu soo saaray boggiisii markaasuu soo saaray haddana maaragtaane inta sanee aygu boggiisu uu dhulka dul ooli kara lagu hayn karo sanawaad quruun dhan markaasuu yidhi cilmigan ninka keenay baan u baahanahay buuhi adduunka waa ayo markaasaa muslimiin buu raadiyey uu la hadlay uu la xidhiidhay waxaa la yidhi waa qur'aan waa tanziilu min rabbi alcaalamiin munazal goormaana qur-aanku soo degay 14 qarni ka hor baa laga joogaa qur-aanka intuu soo degay dhowr iyo 40 sano ayuuna dushii ku soo degay muxamed calayhi salaatu wassalaam nabiy alummiy nebi ummiya ayaa qur-aanka dushiisa lagu soo dejiyey ummi baa la yidhi isaguna wax ma qoro waxa loo qorayna ma akhrin kara baa la yidhi qur-aanku nebiga sifaadka ilaahay uu ku sheegay ee nebiguna uu ku faanuu yidhi naxnu ummatan ummiya annaku waxaan nahay ummad ummiya waxna ma akhrina baa nebigu waxna ma qorno ummaddaasuu qur-aanku ku soo degay ka warrama qur-aanku waa mucjizo weeyaan mucjiz dhallinyaradii markii boqorkii iyo dadkii muslimiinta wada socda iyo yarkii ay u soo dhowaadeen buu ku yidhi haddii aan dul istaagno way ga naxayaan laakiin qadiyaddaan fahamsiin inuu caalamku socday annakana caalamkayga ilaahay uu joojiyey waddankiina ay ka jirto dowlad islaamiya boqor islaam waa macquul waa ku sugayn boqorkii dadkiisi halka bay ku sugeen markuu u galay baa la yidhi ilaa markuu ka soo baxayba way jiifteen hurdaday ku noqdeen ilaahay ruuxdii buu ka qabtay isagii markuu godka galena ruuxdii baa ilaahay ka qaaday oo ku duldhacayba saacado markii la sugayey la waayey ayaa loogu yimiday intoodiiyo wada mayda macal isagii ki yaraa waa ka boqorku odhanaya lanattakhidanna calayhim masjida waa diinihii ummadaha inaga horreeyey shareecadahoogii sidaa darteed dhallinyaradaasi waxay halkaa ay u galeen waa ilaahay dartii laakiin bal karaamadda heleen ka warrama ilaahay wuxuu ku ammaanay inay fitya dhallinyaro ay ahaayeen rabbigood bay rumeeyeen hanuunna waanu siyaadinay baa ilaahay yidhi ilaahay waxau ku sharfay welibana hee karaamaad ilaahay inuu siiyey oo karaamadoodii ay ka mid tahay 300 oo sano iyo 9 sannadood in jirkoogii waxba uunan isbeddel ku dhicin oo sidoodii ay iska ahaadaan halka caalamka inta kalena uu socday ilaahay dhallinyarada wuxuu gadaashooda u xaqiijiyey camalkoogii hididiiladoodii waa maxay maadaama waddan gaalo ay ku noolaayeen oo boqorkuna uu gaal yahay ilaahay wuxuu tusay waxay indhahooga ku doogsadaan oo ah boqor muslima iyo waddan wada islaama inuu arko yarka yaraa waxaa ka sii cajab badan baa la yidhi qur-aankaa lagu sheegay ilaa yowma alqiyaamaha la akhrisanaayo suuratu lkahf waa suuradda uu nebigu yidhi jumcada ninka suuraddaa mar akhriya buu nebigu yidhi hee labadiisa lugood dhexdooda nuur baa ka soo baxa buu rasuulku yidhi oo ilaa samada isqabtoo malaa'igtu ay arkaan 10 suuradood ee ugu horreysa suuratu lkahf 10 aayadood ee ugu horreysa waa fii riwaayatan ugu dambaysa ninka akhristana buu nebigu yidhi fitnada dajaalku ma saamaysa buu rasuulku yidhi man qara'a awal aayaati suurata alkahf cusima min fitnati dajaal fitnat dajaal allah inaga badbaadiyo aamiin hadad dajaal fitnadiisii waa ta imika socoto weeyaan dumarka iyo facebooka iyo tuugtaagga iyo youtubeka iyo balaayo jinka iyo waxaan dadkii wareeriyey ilaa islaamihii odayadii dhallinyaradii
indhahay naga wada qaadeen maskaxday naga galay oo fitnatu dajaal weeyaan waxaas dajaal fitnadiisa waan ilaahay laga magan galo lana dajaal waxa ka soo horeynaysa maxaa ka soo horeynaya fitnadiisa wa min sharri fitnatil masiix ad-dajaal dajaal intuunan iman fitnadiisa adduunka iman doonto saameyn doonta suuradda dhalinyarada qisadooda ilaahay kaga warramay waa suuratul kahf haddaa 10 suur aayadood ugu horeysa ama 10 ugu dambaysa labadaba waa xadiisku waa ku soo arooree haddaad akhrisatid subax walba dajaal fitnadiisa ilaahay baa ka ilaalin kuma saameynaya dajaal fitnadiisuna ku saameynay mayso ilaahayna hanaga badbaado ninka dhalinyarada hadduu dhalinyarnimadiisa ilaahay uu ku gartana wanaagga iyo sumcadda fiican baa ilaahay ka reebaa taariikh wanaagsan waana adag tahay nin dhalinyaro ah inuu dhalinyarnimadiisii shaydaankii baa ugu yeedhaya haweenkii baa u yeedhaya dhalinyaradii baa kuu yeedhaysa mujtamacii baa kuu yeedhaya fisqigii iyo fujuurkii baa meel walba kaaga yeedhaya waa xilliga waalan yahay ninka dhalinyaradu markuu da'yar yahay waa li caqligiisu caqli dhan maaha bay ku leeyihiin culimmadu ninka da'da ilaahay ku hanuuniyey ee masaajidda ku xidhma ee salaada ku dadaala ee diinta ilaahay ku dadaala ee khayrka ummadda ugu yeedha ee naftiisana badbaadiya walaalihiina badbaadiya taariikh fiican baa ilaahay ka reeba waxa uu ka mid noqonayaa 7 ilaahay u hareynaya maalinkii maalinka qiyaamaha yawma laa dilla ilaa dilluh waa maalinta har kale uusan jirin buu nebigu yidhi harka ilaahay mooyaane lidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu dhallinyaray u badnaayeen waynaan wax ku islaami uu yar yihiinba 20 30 40 ilaa 20 inta u dhaxaysa ku islaameen asxaabta badankood Khalid ibn Sa'id baa kamid ah radiyallahu anhu Sa'id ibn al-Aas baa dhalay abihi 10 wiil walaalu la dhalay baa leeyahay wuxuu ahaa oday markuu dagaalka qabaa'ilka qabiiladu islaynayaan isagii nimadiisu saf bay qabsan jireen saf dhan kibar badan buu ahaa Khalid markuu islaamay Khalid ibn Sa'id ayuu u diray walaalihii yiri soo qabta Khalid diinteeni buu ka baxay baan maqleen waa Makka waa reer Makka waa la soo qabtay uu xidhxidhay baa leeyahay afarta din buu ka xidhay halka gaajo ku dhigay وعذابي وكري واي دينتا اسلام كان نقبو ليا كما نقني بو دابا دينتاس wax kala sheeg hadad Muhammad ka soo hari weydid diintiisana aad ka soo noqoni weydid baadiya biyaha waan ka mancin buu ku yiri markaas aaba hadad adigu biyaha iyo baadka adiga mancisid rabbigay baan aniga quudanay buu kay ya yarsaaqaya ilaahay bay siinay dad cuntadii biyaad u diiday yaa isin Allah baa isin Allah qul la ilaha illa Allah shalay islaameen markaaba ilaahay iimaanku ku galadaysanay yaka inaka dhalinyaradeenna ka warrama kubadda markay ciyaarayaan salaada maghrib haday isqabtaan ka warrama ya kalaaska iyo salaada maghribna aroos iyo salaada ishaayna جادي صلاة عصر كأوركيس إسكت هذا ولا إذا أوركيس نجوا إله مدنا كقوا أمين هذا إمسوا نقالين كقوا وإمسوا عقلين كقوا وإمسوا وقتين كقوا وإمسوا عفمادين كقوا وإمسوا عبادين كقوا جد كاس شنت شيء دين الإسلام كوقف كوي على لسودا جات كاس أودا وعيب علم دولهن مانت dhaqaalaheena u dhaawacay caafimaadkeena u dhaawacay diinteena u dhaawacay
sharaftii aad lahaydna u dhaawacay. Qofka jaadka cuna sharaftiisu meel ma taalo. Islaanta jaadka iibinaysa hadday doonto odhan asalkaagii aabbahay asalkaabee lacagtaydii siiyo u qosli uun ila waa nin sakhraansan oo si kale berri baan keeni doonaa lacagta kale ay siisii haddana dee ma ila aragteen carab nin dhan oo caaqila oo reer dhan maamulaya ayaa duhurka kowda markay gaadha hadduu bilaa lacag yahay oo jaadlaydu lacag hore ay ku sii lahayd way caay dadka hortiisa u qosli uun awa damiirkii dadnimadii cirdigeennii buu bahalkaasi meel kaga dhacay maanta cirdigeenni sidaa raggii iska daayo dumarkii buu maanta marayaa dumarkii hadduu qofku geedka uu taabtana ogow noloshiisaas way baabaaday qofkaas waxba ma dhisan karayo ogow diintii buu la dagaalamayaa cibaadadii sidaa maalin igu yidhi markaan barqaamana salaad khushuuc baan tukadaa wi salaad khushuuc markuu jirkayga ka baxana salaadda ma kici kara wi marka waran laa ilaaha illa allah sax maaha baan ku nidhi sax marka dhallinyarada ilaahay hayna hanuuniyo marka inaku waxaan ku dadaalaynaa sidaa nafteenna aanu islaaxin lahayn shaabu nasha'a fii cibaadati illaah in dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadii da'dan adag ee fasaadkii balaayadii macaasidii qafladii meel walba ay taaleen lagu yeedhayo ninka ka soo hadhay ilaahay ka soo reebo ee xadhigga ilaahay qabsada ilaahay wuxuu ku casuumi doonaa uu nebi maxamed uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinka hadh kale uusan jirin hadhka alle mooyaane tudna shamsu yowma alqiyaamati calaa ru'uusi alkhalaa'iqi calaa qadri miil buu nebigu cadcaadda halkaa inaga gubaysa ayaa la soo dhoweyn buu nebigu bani aadamka madaxoogaasaa loo duldhigi buu nebigu dhididka qofka isaga jirhkiisa ka dhacee ka baxay ayaa 70 xusul dhulka intuu galo soo bixi doona buu rasuulku yidhi markaasaa qof walba dembigiisii intuu ahaa buu dhididkiisu iman buu nebigu qaar buu kuraamaha iman qaar buu halkaa jilbaha iman dhow qaar buu guntiga iman qaar buu garbaha iman qaar buu halkaa iman qowlalada wa minhum man yuljimuhu alcaraqu iljaam waa bad adiga kuu gaaro cid kale kula qabin waa dhididkaagii ogow maalinka khalqigu sida u gubanayaan addoonka ilaahay ku casuumadaya harkiisa hoostiisa ka warrama allah inaga dhigo kuwaas aamiin dhaha yaa u diyaar inuu ka mid noqdo kuwaas wacbud rabbaka xataa yaatiyaka saa ku shaqay hadda ha wecweecan مستقيم دين هذا استقامة كيانو أصدق محمد صحابي كان هذا الهي يا خالد بن سعيد أبيه باكويري بادي يبيا وان كان منعن عود هذا الباد كاجي بيها قاعدوا هذا هيستو إلهي بيقودني يبوكي إيش كسيد خالد بن سعيد رضي الله عنه wuxuu ag yimid nabigeena sallallahu alayhi wasallam daartii arqam buu yimiday wuxuu bilaabay markaa nabigeena uu ag fadhiyo nabiga quraanka ka dhageysto quraanka nabiga ka barto markaasaa lagu yidhi aabbaha baa sankaraad oo buka markaasuu u yimiday aabbihii soo ziyaartay waa gaal aabbihii mushrik laakiin diintu islaamku ku odhan mayso ha u samafalin kuma odhanayso bal waa inaad u samafashaa hadduu gaal yahayna hadduu islaam yahayna kaba sii daranba deedna markaasuu dul yimida aabbihii oo sankaraada oo walaalihiina hareeraha ka wada joogaan markaasuu yidhi ma khaalid baa ninkay dul taagan haaba waa khaalid weeyaan diintii maxamed ma ka soo noqotay may kama soo noqon kana soo noqon maayo buu ku yidhi wuxuu yidhi haddii xanuunkaa aan ka kaco ilaaha maxamed maka lagu caabudi maayo buu ragga gaalnimada halka ka taagneed eega markaasuu yarkii sidaa u eega aabbihii
qiblada u eego sii jeestay buu yidhi ilaahow aabbahay xanuunka ha ka kicin buu yidhi mowqifkaaba hadduu aabbahay weli uu taagan yahay oo cadaawadda ilaahay iyo rasuulkiisa uu hayo isagoo sankaraada uu leeyahay haddaan xanuunkaa ka kaco ilaaha muxamed maka lagu caabudi maayo hadduu la soo taagan yahay ilaahow ilaahow xanuunka aabbahay ha ka kicina ku qaad buu yidhi ku dil kamaba kicina uu ku dhacay dahabaarkii dhallinyaradu waa kaas sida ilaahay ugu xidhnaayeen eeg muscab bin cumayr radia allaahu canhu ardaah fatan quraysh baa la odhan jiray fatan quraysh wiilkii quraysheed magaalada maka nin dhallinyaro ah oo ka qurux badan oo ka xarago badan oo ka dhar fiican ma jirin baa la yidhi zamankiisa waa intuunan islaamin ka hor markaasaa gabdhaha qureysheedii ay odhan jireen caawa muscab anaa la soo haasaa waaya ayaam aljaahiliyadii waa intay diintu dadka soo gaadhin markuu islaamayna hooyadii oo maalqabeennada uyuu ka dhex baxay ehelkiisii buu ka dhex baxay wuxuu ag fadhiistay nabigeena sal alla alay wasalam markaasay hooyadii leedahay ka soo noqo diinta maxamed wax walba waan ku siine may buu leeyahy ka soo noqon maayo wax kale waan ku qaban hooyey laakiin diinta islaamka ka soo noqo kaama yeelaya taas iska noqo aqalkaaga iska fadhi ilaa uu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray markaa nebigu madiinata almunawara muqri baa la odhan jiray baa la reer madiina markay nebiga u yimaadeen la mubaayacoodeen ee baycadii ay dhacday ayay yidhaahdeen nebi allah qof qur-aankana bara nagu dar markaa nebigu muscab buu ku daray bale muscab bin cumayr madiinata almunawar uu yimiday beer buu fadhiistay beer dhexdii halkaabuu dadka qur-aanka ku barayay geed hoosta oo qof dadka intoo loogu keeno halkaabuu dadka ku islaaminayay magaaladii madiine nebi maxamed wuxuu yimiday aqal magaalada madiine ka dhisan ma jirin iyadoo diinta islaamku ay gashay oo reer madiine wada muslim yihiin oo muscab bin cumayr uu dadaalkaa isagu uu la yimiday ayuu nebigu magaalada madiine ku yimid oo lagu soo dhoweeyey markii madiine uu nebigu yimiday dowladdii islaamku madiine ay biyo dhigtay ayaa cali iyo nebigu isag fadhiya ayuu muscab halkaa maray nebiga hortiisa isagoo maaragtaanay maro wuxuu sitaa markaa yar googo-an oo baaliyo oo karkarma yeelata karkarmaha waa taqaanaa soo marada intay duugowday gooday baa maro kale la soo qaaday lagu dhajiyaa markaa buu nebigu u ooyey calayhi salatu wasalaam markaa cali baa ku yidhi yaa rasuulallah maxaad la ooyeysaa bal ii sheeg markaa buu nebigu ku yidhi yaa cali waxaan xasuustay muscab maad arkaysaa ninkaa dhallinyarada maad arkaysaa haa waan arkayaa waxaan xasuustay buu nebigu yidhi intuunan islaamin quruxdiisii iyo xaragadiisii iyo dharkuu xidhan jiray ayaan xasuustay buu yidhi iyo nolosha maanta uu ku nool yahay laakiin nolosha maanta uu ku nool yahay dhar la'aanta iyo nafaqa darrada ka muuqata ilaahay rasuulkiisa kaga raalliya buu rasuulku yidhi ilaahay rasuulkiisa ayaa dhallinyarada islaamku sidaasay ahaayeen dee maalintii uu dhintayna maro kafan looga dhigan la waayey maro yar waxaa go' yar baa loo helayoo marka xagga sare laga saaranayo lugaha ayaa noqonayay marka xagga lugaha laga saarana maradu xaggan madaxay ka aguugaysay ilaa uu nebigu yidhahdo madaxana ka saara lugahana maaragtaana geeda soo qaadoo kaga kafan uga dhiga saasaa lagu aasay hargee noloshoodii adduunyada iyo dhallinyarnimadoodii halkaaba iska dhigeen ilaahay rasuulka inay raalli geliyaan bay qaateen war maxay qaateen ilaahay rasuulka inay raalli geliyaan seefuu nebigu soo qaaday dagaalkii uxud ayaa iga qaadaya buuli nin walba wuxuu aniga markaa buu nebigu ayaa xaqayga marin markaaba gacmihii la noqdeen asxaabtu abu dujaana ayaa yidhi ana xaqeeda marina ii dhiib markaa buu u dhiibay nebigu sal alla ly slam xaqeeda ii sheeg mushrikiinta qoortaad kaga jari galka ku celi maysa zubayr binu cawaam oo nebigayna ina abtigii ahaa oo 10kii jannada loo bishaareeyey ka mid ahaa ayaa yidhi maalinkaas waan yar cadhooday buu yidhi
markuu Abu Dujaana yidhi aniga nebi allow ii dhiib anna xaggaaban gacanta ka soo fiiqay buu yidhi intuu nebigu sidaa eegay buu yidhi ima dhiibin Abu Dujaana nebigu u dhiibay waxaan isiri nebi maxamed adoo ina abtigiya wuxuu seefta kuugu dhiibi waayey uu Abu Dujaana ugu dhiibay markaasaan isqabtoon yidhi kullay nebigu waxyibu ku socdaaye bal ha eegtid ninkan wuxuu sameeyey dagaalkii baa bilaabmay mara yaroo casbu la soo baxay oo halkaa madaxa ku xidhay marka Abu Dujaana Samaak binu Kharasha waa magaciisa Soomaali markaas marada carabtu hadday xidhataan marada cas hadday xidhatana waxay ka dhigan tahay waa geeri dhimasho unbaa diga maqlaysaane nolol buu ku soo noqday hayga sugina saxaabadu markay arkeen Abu Dujaana oo marada la soo baxo xidhay bay yiraahdeen Abu Dujaana maanta calaamat al-mawt buu xidhay khalaas dagaalkii markuu bilaabmay ayuu isagoo oo xaragoonaya ninka dhalinyarada sidoo xaragooda ninka garanaya usqal qalluuciya Soma musasiyatu jibiyo saxaabadu markaas yiraahdeen Abu Dujaana sidii mutakabbiriintu u socda wartadkii kibriga badnaasooday buu u socda markaa bi nabiga ku dacweeyay ya rasuulullah eegsudu u socdo sidii mutakabbiriintu u socdaaye markaa buu nabigu si eegay nabi Abu Dujaana xaragoonay oo dagaalku ku sii socda hada dagaalku rasaas ma helo socdo rasaastan baa la yiri madaaficdan waa dagaalkii fuulayaasha dagaalka bariga kii geesiyaasha waa gacanta la isku tagaya ambaaro iyo waran iyo seef iyo markaasuu nabigu yiri socodka Abu Dujaana ku socdo ilaahay uu necab yahay laakiin meelahana ilaahay ku jecel yahay abu ku jecel yahay socodka uu ninka hadda u socdo qaabka u socdo ilaahay waa necab yahay laakiin se ilaahay meelahan uu se halkan ilaahay ku jecel yahay dhalinyarnimada iyo quruxdaada iyo xaragadaadu diintay ku fiican tahay iminka ku heenu meelaha magaalada dhexdiisa waraabaha u socdaan Soomaa sida durwaaga yaad u xaragoon taariku salaaba tahay saad u xaragoon kartaa ilaahay ma garanaysid bay ilaahay haddaad garan weydo maxaa qiimo ku leedahay markaas xal la xaragoon nin boqora oo kibir badan buu nin sheekh meel u joogsaday maalin boqorkan suugayaa وما تقانا أو أنا قانا سفي عمل وقانا بقر كلاهي ورني كان محول دقاق لايه وحول نكر بقر كان قانا يو سفي عمل وقانا مركز بل يقول يا وسعي تقانا ذات كان سيدي كو قمة كو قانا بلي شيء أول كان نطفة بوري بلا وقاقي هرا مركز لقو أبو رينا بيها الرقا كي مادا مركو قفو أي كي مادانا واجب وكون نقول يسو غسلقو أيا لقا أبو ري هاي آخره كجيفة بوري مركز ديمتانا الدرحي ما نقول درحي حتى أنا دلت جوكتنا 5 كيلو يا صحراء أيا عماسة كوسية تاي إلهي باكو أسطوري بوكي وليس هذا الكاكا ورنا مثلا حال غلغل لوعين صحراء صعوتات هيك بيقولوا بيه كادي يا صحراء يديك يا دعام بك أبو حي فرتاي ردك وحنون توا طاهي مالين مدبال إنه جيو زيارة إنه مدو عينين سألوا حيا الله شاي صعوت الله شاي صعوت الله شاي صعوت معك دقيقتها صحراء دي بعد عفته هذا مالك لكو كلا زيارة لجماعة عدد وأكون يسكا غلط وسود زيارة أدعية النقطة ورنا سألوا حيا الله شاي تاجر من الناس صحراء دافتي والله بكا من الناس صحراء يسكت تكتب والله بكا مركب محل قيمة لها مركب بالشيء والله الدين تنقيمه كلنا يسمى هذا هذا بركينا الدين تنقب سنة سعودي أرمني والدعوة ده كشغين دعوة ده كشغين أنا دعوة ده معي دين الإسلام هو دين عجيب دعوة ده قفك إلهي درت أبح يا جماعات كالراعة جامعة دهن أدون كورنا كدسا سين قفك أبدل كريم أيو خروجك قفك أبدل أنا لوشيس سقو توق هادو جماعة قفك الراعة وطوبت كانوا توق بو هانجر شغادي سيهر جماعة والله بحيبك سوقان وحصون نقول سقو توق نمدي داي سقو بين بدنا أيو جماعة الراعي فرت العشاء مركو الله السعودية وحصون نقول سقو بينتي كطوبت كانوا isagoo غافل وبحي isagoo ذاكر وصون نقول isagoo جاهل وبحي isagoo عالم ودينتي wax ka soo barto cilmiga iyo culimada jacayl buu soo noqon
isagoo daalim ahaa buu baxo ummadda dulmin jiray isagoo ummadda ixsaan u samaynaya buu soo noqon isagoo akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo lagu yaqaano u baxay isagoo akhlaaqdiisa isbedeshay buu soo noqon isagoo labada waalid caaq ku ahaa buu baxay isagoo labadii waalid baari u noqday buu soo noqon ma arkin ma dhicin jamaacad maalin lugaynaysa waa ka jamaacaddu markay lugaynayaan baadiyaha laba isku raacaan moogta weliba nin dacwadda ku cusub iyo nin dacwadda muddo badan ku soo jiray amiirkii jamaacadda markaas yaa mid dhallinyaro ah ayuu yidhi adu aniga i raac intaa jamaacaddu marka ay lugaynayaan tuulo ilaa tuulo u lugaynayaan qur-aanka isku saxaanoo ducooyinka isbaraanoo axaadiista isxafidsiiyaan sheekhii baa markaa yarkii ku yidhi maxaad ka shaqaysaa adu yarkii baa yidhi waxba kama shaqeeyaba iminka maxaad yaraantaadii baratay markaasuu yidhi saasuu sheekh waxaan bartay haa iska daa hay weydiin markaas ma ii sheeg aniguba yaraantaydii aqoontaasaan bartay maxaad baratay markaa wuu yidhi sheekh waxaan ka shaqayn jiray iyo waxaan bartay maad naga daysa ma ii sheeg wuxuu uhi jeeblaan ahaa buuhi jeeble ma taqaanaa suuqa magaalada ugu weyn intoon istaago dadka jeebadahooga waxa ku jira ka saaraa buuhi shaqadaydu waaba shaqadaa buuhi qaabka lacagta jeebadaha ku jirta loo saaraan aqaana oon bartay buuhi hadda waxaan u soo baxay buuhi inaan toobad keeno wuu yaabay sheekh ma jeebka qofka lacagta ku jirta markaasuu haa adigu uu yaabay ila odaygu iska wuxuu moogtay markii in yar lugeeyeen bay jamaacadii meel ku nasteen markii la kacayay ayuu markaa yarkii baa yidhi amiir alaabtaada waa culays han kaa qaado may waan qaadi karayaa iidda may han kaa qaado may oo yar lugeeyeen ilaa intuu han kaa qaado idhiib lahaa buu lacagtii u watay odayga ka saarayba nabiga ku salliya markay dhexdaa marayaan buu ka yidhi sheekhe sahaydaadii bal jeebadaada ka baadho oo uu taabto halkee waatan buu yidhi ha nixina hoo goorma iga dhacday kaamay dhicine markaan alaabta kaa qaadiyaan aan ku lahaa alaabtaada baan u socdo waan kaa tartiibiyey buu dacwaddu waa cajiib wallaahi waa cajiib camalka dacwadda dad badan baa dacwadda la yaaban dacwaddu waa islaax dacwaddu waa tarbiyatu nafs dacwaddu waa dadka la hagaajinaya baabuurka hadduu cadilma halkee la geyn dhakhtar mise garaj haddaan dhakhtarkiiga ka waran majnuun dhakhtarka looguma talagelin dhakhtarka dadka xanuunsan baa loogu talagalay baabuurka garaashkaa la geeyaa hadday bini aadanka iimaankooga iyo akhlaaqdooda iyo diintoodu dhaawac soo gaadho meesha ummadda lagu hagaajin kara waa masaajid meel kale maaha masaajid in la keeno masaajidka in wax lagu baro khuruuj markaan baxayno meel kale tegi mayno مسجد ما تجينا مسجد إلى مسجد حلقة إلى حلقة صلاة بعد صلاة عمل بعد عمل خير بعد خير ونور على نور وياه بركائنا الله درت ولا بحنا البيوت إن شاء الله إن شاء الله ده قولوا إن شاء الله ده درس عنه ده دعوة داس مركز وعمل وين الله ينسى مركز بحي سنة قفكم مركو بحينا reer hadduu leeyahay reerkaaga dayac lama leh reerkaagana la soo ballan masaariiftoodana meel u saar jamacaddan ilaahay dartii u raac haddaad shaqaale dowladeed aad tahayna shaqadaada fasax ka soo qaado haddaad ciyaal iskuul tahayna iskuulkaaga maaragtaanay markii fasax la galo fasaxaaga jamaacadada raacu ka faa'iidayso dacwaddu odhan mayso qofku reerkiisa gaajaha kaga dhaqaaqa odhan mayso labadaadii waalidoo adeeg u baahanna ku odhan mayso ka kaalayo ilaahay dartii u bax ku odhan mayso bal waxay ku leedahay dacwaddu sharcigu wuxuu leeyahay ma dacwaddu ku leedahay labadaada waalid orada u khidna bay ku odhan hadda adiga kaa maarmayn marka waa camal tarbiyada oo la doonayo adiguna naftaadana ku hagaaji walaalahana soo hagaaji insha allah dhaha arday baad u badan tihiin bal wixii jaamacadaha dhigto gacanta taaga ama kolleejka si fiican u taagan ma sha allah ayo wixii madaarista diiniga dhigtowna cilmi sharciga dhigtow ama quraanka aynuuna gacanta taaga ma sha allah talabatul cilmiga inaga badanay allahu akbar
jigjiga way dhaqaaqday allah barakeeyo ama dhaxda tayib wixii shaqaale dawladeed bal gacmaha ninkuna taaga ama hay'adaha ama shirkadaha private ka u shaqeeyo si fiican u taaga hay taaga wixii aan waxba imika hayna wali shaqo sugowna bal gacanta taaga ma badno ma sha Allah tayib waxaan ku ballamaynaa marka inaan ilaahay dartii u baxdaan 2 bilood 40 cisho bil 20 cisho intii ilaahay firaaq ku siiyo raax jamaacada naftaadana soo islaaxi walaalhaana islaaxooga ama qaybtaada ka soo qaado bal ayaa isqoraya insha Allah isa soo tartiibinaya istaaga gacanta maaha in istaagaan ba fiican waanu ducaynaynaa insha Allah ballan maahina waa niyad haddii ilaahay ku waafajiyana waa fadliga ilaahay haddii duruuftu ku saamixoodana ajarkii baa ilaahay ku qoray